Benim yüreğimi yaktılar. Baba yadigarımı, alplerimi katlettiler. Ben Ertuğrul Gazi'nin oğlu. Ölüm mukaddesse ve bu cengin sonu şehadetse. wuxuu dhisay aasaaska boqortooyo islaami ah oo ku fidsanayd 3 qaaradood waxayna dunida hogaaminaysay in ka badan 600 sano. ninka aan ka hadlayo nin kale ma aha waa Cusmaan bin Ertugrul. wuxuu ahaa aasaasihii boqortooyada Cusmaaniyiinta. Cusmaan bin Ertugrul wuxuu dhashay 1258 isla sanadkaas Tataarka waxay dumiyeen boqortooyadii Cabbaasiyiinta. wuxuuna ku dhashay Cusmaan Sawt, wuxuuna ahaa yaraanka 3 wiil ee Ertugrul. Cusmaan aabihiisa Ertugrul wuxuu xukumayay dhul yar, wuxuuna ka difaacayay xuduudda boqortooyada Saljuuqiyiinta weeraradii kaga imaanayay Byzantiniyiinta. Cusmaan wuxuu ka qayb gali jiray dagaaladii aabihiisa laga soo bilaabo xilligii uu da'da yaraa. intii uu aabihii xukunka hayay, Cusmaan wuxuu abaanduule ka ahaa 7 ilaa 8 dagaal. tani waxay ahayd sababta loogu bixiyay magaca Gaazi oo micnaheedu yahay dagaalyahan muslim ah oo la dagaalamay gaalada marar badan. wuxuuna aad uga dhex muuqday askarta isagoo da'yar. Ertugrul Gaazi wuxuu u diray wiilkiisa Cusmaan suldaankii Saljuuqiyiinta ee Konya isagoo wakiil ka ah dhowr jeer, halkaas oo uu kula kulmay madaxda iyo odayaasha muslimiinta. markii Ertugrul uu dhintay, Cusmaan wuxuu noqday hogaamiyaha qabiilka Kai, wuxuuna bilaabay inuu balaariyo xuduudaha dhulka aabihiisa. Cusmaan bin Ertugrul wuxuu jiray 23 sano markii uu noqonayay hogaamiyaha qabiilkiisa ee Kai sanadii 1281. wuxuuna guursaday Cusmaan Malxuun Xaatuun, waxayna u dhashay Orkhaan oo noqday hogaamiyaha Cusmaaniyiinta kadib geeridii Cusmaan bin Ertugrul. Cusmaan wuxuu caan ku ahaa dagaalka iyo nabadda. xilligii Tataarka ay Anatolia argagax ka wadeen, qaxooti badan waxay hoy ka heleen maamulka Cusmaan bin Ertugrul, waxaana kor u kacay tirada dagaalyahanada qabiilkiisa. ku dhawaad 10 sano kadib markii uu noqday hogaamiyaha qabiilka Kai, Cusmaan wuxuu sameeyay astaan u gaar ah dawladdiisa cusub, wuxuuna ku dhawaaqay Cusmaan in dawladdiisa ay ka madax bannaan tahay Saljuuqiyiinta, wuxuuna diiday bixinta canshuurta la siinayay Tataarka, wuxuuna dagaal aad u dheer la galay Byzantiniyiinta. Cusmaan iyo dagaalyahanadiisa waxay qabsadeen qalcadihii iyo magaalooyinkii Eskasheher, Inanu iyo Belgic, ugu dambeyntiina Yenisehir, halkaas oo ay ka dhigteen saldhig xoog badan oo ay ka go'doomiyeen magaalada Bursa oo noqon doonta caasimadda cusub ee Cusmaaniyiinta. inkastoo Cusmaan bin Ertugrul uu qabsanayay qalcado iyo magaalooyin cusub, laakiin sanadii 1326 ayay wax walba isbedeleen. Cusmaaniyiinta ayaa qabsaday magaalada Bursa kadib waqti dheer oo go'doomin ah, waxaana laga dhigay magaalada Bursa caasimadii ugu horeysay ee dawladda Cusmaaniyiinta, waxayna noqotay magaaladan mid saameyn aad u ballaaran ku leh dhacdooyinka ka dhaca Bariga Dhexe, Yurub iyo Afrika. Cusmaan bin Ertugrul wuxuu ahaa hogaamiye cajiib ah, wuxuu ahaa hogaamiye caadil ah, geesi ah oo naxariis badan. wuxuu caawiyay masaakiinta, xilliyada qaarna wuxuu siin jiray masaakiinta maryo uu isagu leeyahay. Cusmaan bin Ertugrul wuxuu qadarin jiray oo uu ixtiraami jiray Sheikh Edebali. habeenada ka mid ah, Cusmaan bin Ertugrul ayaa riyooday isagoo marti ku ah guriga caalimkii muslimka ahaa ee Sheikh Edebali. kadib markii uu riyada la yaabay Cusmaan, wuxuu riyada u sheegay Sheikh Edebali. aamusnaan yar kadib, Sheikh Edebali ayaa ugu jawaabay, waxaan helay war wanaagsan Cusmaan, Ilaahay adiga iyo wiilashaada wuxuu idinku barakeeyay xukun dheer. adduunka oo dhami wuxuu harsan doonaa xukunka wiilkaaga, gabadhaydana xaaskaaga ayay noqonaysaa. sidaas ayuu ku guursaday Cusmaan xaaskiisii labaad, Raabica Bala Xaatuun. Cusmaan bin Ertugrul ma aha oo kaliya geesi, waa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu waaweyn ee taariikhda. dawladdiisa oo ahayd mid ka mid ah maamuladii ugu yaraa ee Anatolia, waxayna ahayd qiyaastii in ka yar kala barka dawladda Switzerland, waxayna noqotay dawladdii ugu weyneed ee dunida qarni iyo bar gudaheeda.
shaki la'aan tani waxaa sabab u ah Cusmaan binu Ertugrul oo ahaa khabiir ku xeel dheer taatikada dagaalka iyo sidoo kale raggii ka dambeeyay oo ahaa dagaalyahano. hadda Cusmaan binu Ertugrul wuxuu ku aasan yahay magaalada Bursa ee dalka Turkiga